waa wadadii 150ka baaxad ahaan marka la eego wadada ugu ballaaran ee ku taalla magaalada Hargeysa. sidoo kale waxay ku taallaa meel istiraatiiji oo inta badan ay gawaadhidu aad u isticmaasho. saxmadda badan ee suuqana aad iyo aad bay uga yaraysaa magaalada. markaa waa aragtaan wadadii say noqotay muddo iminka 9 bilood ku dhow ayay sidaa tahay. laba haad bay ka kooban tahay oo aad u waaweyn. markaa haad baa waxaa la dhigay xooga daamurkiya, kii kalena inta carrada la dhigay aragtaan iminka dhoobada saa u noqotay ayaa lagaga tegay. kadib marka ay roobku helana saas un bay u noqonaysaa dhoobadaas iyo linkaas. markay noqoto roobku aanu jirin ay noqonaysaa boodh dukaamadaas iyo waddanka kasoo horjeeda oo dhan dhas bay ku saydhinaysaa. iminkana waa aragtaan cid mari kartaa ma jirto. qofka ka tallaabaya iminka wuxuu soo wareegayaa masaafo aad iyo aad u dheer. marka waxaan leenahay bal wadadan dowladda hoose dee dib ha u eegto. waa aragtaan waa wada aad iyo aad u baaxad weyn, waa wada saxmad badan, waa wado ku taalla meel istiraatiiji. waxaan leeyahay wadadan haddii la dhiso iminka oo laami caadi la mariyo waxa weeyaan saxmadda suuqa ee mashquulka badan gawaadhida ku sababay waxaan u arkaa inay aad u dhimi lahayd. waayo wadadan waa wado aad iyo aad u dheer oo labada koone magaalada ba isku xidha ilaa iyo Garanhadi ilaa iyo xagga Kirirka marka laga soo bilaabo bariga galbeed waa isku xidha. markaas suuqa saxmadda gawaadhida aadka ugu badan inta badan ee naarno way yarayn lahayd. wadadii waa soo burbursan. dowladda hoose waxaan leenahay bal dib ha loo eego wadada uu maayirku ugu horeeyo. wadadan ma hadda xagga maba soo gaadho waa aragtaan wadadaas siday tahay booyadii bay iska dhex yaalla. birdhood meheradaaba laga raray dhulkan haddana waa taa iska sideedii biyiba iska fadhiya waa dhoobadaas. wadadan markaa waxay u baahan tahay in dib loo jeegareeyo oo la dhiso. markaas magaalada culays badan ayay ka kor qaadi lahayd. waxaan leenahay dowladda hoose iyo bal maayirkaba bal dib ha loo eego wadadaasaan leenahay maayir iyo madaxweyne laftiisa. aad baan idin salaamay.